ku geeriyooday ee Jigjiga. juqraafi ahaan waxay ku taalaa Jigjigi dhinaca bari ee sagaalka deegaan ee isku tagooda ama midowgooda la isku yiraahdo Itoobiyada maanta waana magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxa ku hareeraysan buura dhagaxaana marka laga reebo dhanka waqooyi oo banaana inta ishaadu ay qabato waxay aadi sababa u jirtaa magaalada Jigjiga 610 kiiloomitir oo dhinaca galbeed ay uga jirto dhinaca barina waxay xuduudda Soomaaliland magaalada وجعل أوجد 60 كيلومتر أما با 730 ميل هذا مقالة تك وجعله وكل شيء أحمد حسن عوكي أي وحن جورد ويد كلا حريري أحمد سعيد عجة وريها بي سي ذا وكقيب قلي أسكا وريها سعانكا وحنا إيشاد مقالة وجعله إن الله نحرسه إن أحمد حسن عوكي وحالة كجورة مقالة تنتجه سنين بالله قطيبنا إثيوبيا مقالة وجعله بصر بربع كسوقين قلي وسيرة كتير دولة دينك الصومالية إثيوبيا لما مدحونا وهنا دولة دينك الصومالية إثيوبيا كتير سنة مسؤولين كلكم الناس ده يقولون كي يدنا دولة دينك الصومالية دينا الصومالية ما كسوقين قلكم الناس ده وكريم مقالة يكوّون هرجيسون ده بالك جوكتة بورا ما بربرة بروعة ودبيري وجعله مدحونا هرجيك الصومالية عبد الرحمن سيري ما شوقات قدوميها برلمان عبد الرحمن عرو قدوميها حسب كلام هيا مسبب عديد هذا استوديو بي سي ده هذا وحي لفريا صاحبك أحمد عبد النور الله ونحرسته أحمد حسن عوكي وهو هانجرين نلا شقين جري أو مدير وشقيني بي سي ده لانت الصومالية ما حد نوق شيء كرتا الله ونحرسته أحمد وقت قدير أو ذا شقيني سن إن الله وإنا إليه راجعون صاحب كان الله ونحرسته جنة الله كورابيو أحمد حسن عوكي وحوها هدي قف عاني هي nin caana aniga waxaan ka wada shaqeynaa radio Muqdisho iyo telefishinkii qaranka ee Soomaaliya caanimadiisa anaan warfaafinta ku soo beerin ayaan aqaanay caan ayuu ahaa codkiisa ayaan aqaanay oo jeclaa markii dambana shaqadan isugu nimid idaacadda kadibna telefishinka laba waxyaabood ayaa Axmed lagu yaqaanay farxad badan iyo kaftan badan nin ballaaran markaan ku leeyahay af Soomaaliga meel kasto looga hadlo fahma maadaama cid walba uu galaangal u leeyahay oo la sheekaysanayo oo la hadlayo yani shanta deegaan ee Soomaaliya ay u qaybsan tahay inteeda badan yani mid walba kaftankeeda iyo sheekadeeda iyo haasawaheeda ayuu kaaga sheekaynayaa waa qof aan marna niyad xumo iyo maaragtay caro midna aan lagu arkaynin ku kalsoon inuu Soomaali yahay oo muslim yahay shaqadiisa jecel oo sida ay tahay inuu u qabto jecel marka Axmed wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan dadka dhageysanaya waxa laga yaabaa in isweydiiyaan Axmed muxuu sidaan weyn caan ugu noqday maadaama ay jireen saxafiyiin badan oo jiilkiisa jiray oo warbaahinta Soomaalida ka shaqeynayay runtii way jireen dad badan oo caan ah oo waliba loodkiisii ama jiilkiisii saa sheegto u badnaa laakiin Axmed anigu laba siyaabood aan dhihi karaa waa mid codkiisa oo aad loo jeclaa aad u wanaagsanaa ayuu caan ku noqday marka dadka idaacad ahaan ka maqala ama markii dambe ay suurto gashay telefishinka inay ka arkaan codkaas wanaagsan iyo wax tabintaas ayay ku jeclaayeen oo caan uu ku noqday dadka ay wada shaqeeyaan ama ay isbartaanna wuxuu caan kaga ahaa oo ay ku jeclaayeen sheekada iyo dabeecadda iyo furfurnaanta bari baan la kaftan waxa yiri Axmedow adiga subaxna adoo xanaaqsan nooma timaadisa wuxuu jiraan wuxuu yiri adiga adduunkan maxaa iskugu mashquulinaysaa maanta ka fikir waxyaabaha 10 sano iyo soo socda shaqalku ma lihid marka alxamdulillah maanta waa soo kacnay waa soo quraacnay waa faraxsanahay marka wax ka badan hadaa isku mashquulisid waa meeshaas iyo meesha dhibaatadu ka imaanaysa Axmed shakhsiyadiisa gaarka ahayd maxaad ka xusi kartaa nin aad u macaan inta qof macaan yahay macaan maanta iyo barita hadaa la joogtid marna kama xiisa dhacaysid kuma caajisisid agtiis qosol
iyo kaftan iyo maaragtay maadeeye ayuu ahaa Axmed. yacni sida dadka wax waa la sheegaa laakiin sida uu sheego looma sheegi karo. sheekada midda ugu yar hadduu yidhaa waa kaaga sheekaynaya qosolkaa kaa dhammaanaya. markaan shaqada waqti yar nafis helno inaan shaaha isla cabno oo meel maaragtay dibadda u yara baxno oo waad ka helaysaa waa ku nafisaysaa waqtigaas gaabaneed la joogtid qosolka iyo maaragtay dabeecadda iyo furfurnaanta. mideeda kale Axmed waa laga yaabaa dad dhalinyaranimadiisi inay yaqaaneen habeenkii inuusan dhaqso usoo seexan oo kale iyo laakiin waxaan kuu sheegayaa Maxamedow matalan 20 sano ugu dambeysay Axmed xagga cibaadada aad iyo ugu dadaali jiray salaada iyo soonka intaba aad iyo aad ugu fiicnaa. marka qof wanaagsan ayuu ahaa. ilaahay u naxariistaan leeyahay. allah u naxariisto. muddadii Axmed uu ka shaqeynayay saxaafadda Soomaalida meeluhu ka soo shaqeeyay waxa kamid ah raadiyo Muqdisho wuxuuna afhayeen u noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. sidoo kale xilligaasi barnaamij uu ka diyaariyay madaxweynaha ayaan in yar idin ka maqashiinayna. madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa uu shalay galabnimadii si rasmi ah u soo gabagabeeyay aqoon-is-weydaarsigii maalmahanba u socday culamaa u diinka Soomaaliyeed oo ka kala socday dhammaan gobolada iyo degmooyinka waddanka Soomaaliya uu ka kooban yahay. allah naxariistay Axmed Xasan Cawke ayaa waxa sidoo kale uu madax u ahaan jiray cabdi xaaji goobdoon oo isla markaana jagada afhayeenka madaxweynenimada uu kala wareegay. goobdoon ayaan isna waxaan wax ka weydiinay wixii uu ka yaqaanay Axmed Xasan Cawke. الله نحرسته إنا لله وإنا إليه راجعون. أوكي بحال لقصه قرية هرقيسة واحد جري نظام شرعي ووزارة الدولة دي مركز جرتي أي ودي تسوء أهين مركز شغال اللي قرأ إن لقى قرأ وقوي يكوفر مركز هذه وزارة قاضنا يسلح قف طبعا قف شنة وقوي لقصه قرأ جري شنة واحد لقصه جري كوفر وحكم إذا بدنا يرد مركز لقصه قرأ الكاس وكم إذا أيان إدريس حسن ديري إدريس عقال يونس علي النور هايتو الشيخ محمود دلمر لما انتو انتي النور والسلام انتي اللي وتنا الله نحرسته احمد وحوها من بيري اكتفا من شغالي سآدي آد وفي عنبوها وليبا وحو سيجار وتلماما جود نيوت كاستروها وركا شهيديسا يعني من آد وفي عنوها ووركا كلا دقدقا marka dabeecad fiican uu lahaa oo dadka maartay shaqaalaha iyo madaxda uu kula dhaqmo. adiga ka goob doon ahaan maadaama isla soo shaqayseen maxaa ku xasuusan kartaa mid iyo laba haddaan nooga sheegto? waxaan ku xasuusan karaa howlihii loo diray anigoo markaan agaasimo guud ah wasaaradda warfaafinta ka ahaa marka aniga waxaan ahaa dowladda Maxamed Siyaad Barre waxaa iga bedelay aniga Yaasiin Xaaji Ismaaciil Allah u naxariistay jildo Yaasiin waxaa bedelay Cawke oo wuxuu noqday maxaatooda wariyaha madaxweynaha waxaad arkaysaa yani darajada uu gaaray inuu ku gaaray discipliin iyo maxaatooda anshax wanaagsan iyo shaqada sidoo ugu dadaalayay waxaan si gaar ah u xasuustaa wixii howl loo diro wuxuu ahaa nin soo dhameystira oo ekeeyay sidii la rabay oo ekeeyay ayuu ahaa waxaan kaloo ku xasuustaa nin wuxuu ahaa aad iyo aad u furfuran oo dowladda yani aad u faraxsan mar walbaba oo aan dadka carada badan aan ahayn ama maxaaytood carada ku degdega waxaana qiimay inuu ahaa nin aad iyo aad u degan oo maxaaytood shaqadiisana ku firfircoon dadkana aad u ixtiraamo. kaasi waxa uu ahaa cabdi xaaji goobdoon oo madax u ahaan jiray Axmed Xasan Cawke oo madaxdii raadiyo Muqdisho ka tirsanaa oo taariikhdiisa wax nooga sheegay. tacsiif fara badan ayaa naga soo gaaraysa dhammaan mas'uuliyiinta sare ee Soomaalida ee ku sugan deegaan walba. waxa inoo soo koobaya Cusmaan Xasan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tacsi u diray shacabka qoyskii eheladii uu ka geeriyooday wariye Axmed Xasan Cawke oo kamid ahaa howlwadeennada kaalinta weyn ka soo qaatay saxaafadda Soomaaliya. hadal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu tilmaamay in Cawke uu wax weyn ka soo qabtay taariikhda dalkana baal dahab uu ka galay. madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaanyo waxa uu marxuumka ku sifeeyay tiir ka baxay guud ahaan inta ku hadasha afka Soomaaliga. waxa isna ka tacsiyay geerida Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ka tacsiyeeyey qoyskii eheladii iyo dhammaan bahda warbaahinta soomaaliyeed geeridii naxdinta led ee ku timid allah u naxariistay wariye axmed xasan cooke oo xalay galankii dambe ku geeriyooday magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida itoobiya madaxweynaha puntland waxa uu sheegay in wariye axmed xasan cooke uu ahaa shakhsi aad u wanaagsan oo wax badan ka soo qabtay warbaahinta soomaaliya isagoo alla uga baryey inuu naxariistii janno ka waraabiyo xafiiska ama stuudiyaha b b c da ee magaalada nairobi waxaa fadhiya suxufi weyn islamarkaana madax u ahaan jira laanta soomaaliga ee b b c soomaali maxamed cabdulaahi ahaana ninkii soo qoray axmed xasan markuu imaanayey laanta soomaaliga ee b b c da salaamullaahi calayka maxamed cabdulaahi calaykum salaam bal iska waran waa fiicannahay maxamed cabdulaahi hadda ninkaasi taariikhda weyn leh adigaa ka mid ah suxufiyiinta roog cadaaga ah ee taariikhda weyn ku leh saxaafadda soomaalida maxaad nooga sheegi kartaa allah u naxariistee saaxiibkeen axmed xasan cawke waa mahadsan tahay horta marka ugu horeysa axmed ilaahay jannadii fidoosa ahayd ilaahay ha geeyo dembigiisna ilaahayna u dhaafo waana wada cafinaynaa intii asxaabtiisa ahayd nin iska gafyar buu ahaa eheladii uu ka geeriyoodayna samar iyo iimaan ayaanu leenahay caruurtiisii xaaskiisii oo london joogta baan filanayaa marka horta sidaa u sheegtay nin taariikh dheer buu ahaa sida warkiinaba loogu sheegay axmed sidaa u garanaysay adigaba waa garanaysay wuxuu ahaa nin iska farxad badan oo dhibkiisu aad iyo aad u yaryahay badi markaan wada shaqayn jirnay nin baan waxaan ku idhi haddii idaacaddu ay qof keliya u baahan tahay axmed keliya haddii la yidhaha dadka kale oo dhan shaqadaha laga fadhiisiiye qof keliya shaqada hala loo daayo axmed wuxuu ahaa ninka loo reebi karayo codkiisa iyo shaqada oo dhan oo uu si fudud u qaban karaya hadday war noqoto war ku akhrin karayaa hadday madadaal la noqoto madadaal uu samayn karayaa waa nin iska kaftan badan buu ahaa sidaa u xusuusantahay adigu wataa noo imaan jirta waa garanaysaa si fiican inta marka waxa weeyaan suxufi weyn baaba adigu tahay waa garanaysaa axmed wuxuu ahaa waxyaalahan ka xusuustoon hadda kuu sheegi lahaa waxaa ka mid a maxamed cabde oo taariikhda inay gasho ay ka mid tahay nin iska farxad badan buu ahaa kaftanka markii la kaftamayo waxyaalaha lagu xusuusan karayo horta nin qabiil ma ahayn oo dadka soomaaliyeed maca dadka kenya ku nool ee soomaalida wuu la saaxiibay ee n f d wuxuu oran jiray dadka badi ee kenya ka yimaada waxaa la yidhaahaa ma fiicna wuxuu yidhi waxay la kulmeen raggii aan mutacalimiinta ahayn asxaab badan buu kenya ku lahaa meel walbana ku lahaa wadanka soomaaliya haddaad tahay meel aad doonaysaa ka timaadid axmed saaxiib baa la ahayd waxyaalahan ka xusuusanahay waxaa ka mid ahayd in maalin aan weydiiyey oon ku yidhi axmedow bal waxaa markii afhayeenka ahayd maxamed siyaad barre dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre jagadaana bilaash kumuu gaadhin haddee kolleyba aqoon iyo firfircooni buu ku gaadhay maxaa kula yaab badnayd wuxuu yidhi anigu aan iska suala badnahay wuxuu igu yidhi waxay igu cajib badnayd ama igu dhib badnayd maalin aan madaxtooyada ka imid oo baabuurkii wasaaradda warfaafintan oo iga soo raagay baa wasiir baa i arkay markaasuu isii qaaday dareebalkiisi baa i yeedhay wasiirkii baa yidhi war soo gal xaggee u socotaa idaacadda radio muqdisho kamana fogeyn markaasaa wuxuu yidhi warkii kowdana jeebkan ku wadaa wixii dowladda ka soo bixi lahaa waxaana jeebkayga ku jira inuu wasiirkan wasiiro uu ka mid yahay shaqada laga fadhiisinayo asagiina uma sheegi karayo wuu yidhi sidaan kuu taas waxay ahayd waxyaalo iga sheekeeyey nin ay cid is-eedaanna ma ahaynoo nin iska farxaan u ahaa shaqadana aad buu ugu fiicnaa midda kale aan ka xusuusnahay kaftankiisa waxa weeyaan dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre buu la shaqayn jiray dadka qaarkood markii dowladdii ay dhacday maxamed siyaad barre waxyaalahay ka sheegeen aad u folxun markii ay la joogeenna way ammaani jireen asaga weligii maxamed siyaad barre wax xumaana kama sheegin wuxuuba oran jiray war noo daaya waa maxamed sulube uu idaacadda ka oran jiray asagoo aan markaan sheekaysanayno mararka qaarkoodna dadka uu la kaftami jirayoo wuxuu ka oran jiray waryaada dowladdeenii towraddahayd hadda inaa caydaan iyo inaad afkeedii ku isticmaashaan iskuma heli karaysan eryihii aan anagu soo saarnay ee dowladdii kacaanka ay soo saartay dee noo daaya
oo af kale ku hadla afkeenni noo daaya nin caynkaasuu ahaa nin mabda' le buu ahaa sidaa ula socotay maxamed cabdi waa iska garanaysa dad baa buugaagba ka qoray maxamed siyaad barre mudxikiintii ugu waaweynaa ee maxamed siyaad barre u dhowaana bay ahaayeen dadaan xishoonayno calooshadla ciyaar ay wada ahaayeen qaarkood marka maxamed cawke wuxuu ahaa qof mabda' leh oo ninkii ay wada shaqayn jireen ee uu daacadda markii hore u ahaa ilamaa uu ka dhimanayna daacadunbuu maxamed siyaad barre uu ahaa ma aha siyaasadda maxamed siyaad barre wuu wada raacsanaa laakiin cayda iyo faduusha iyo xadgudubka ninka xishoonaya buu ahaa oo akhyaar ah allah u naxariisto samray imaanna kulligeen allaha naga siiyo iyo dhammaan qoyskiisa iyo qaraabadiisa axmed maxaad ku darlahay caannimadaas way jirtaa runtii idaacadda isagoo caan ku ahaa ayuu telefishinkiina yimid telefishinka wuu ka sii daran yahay xagga magaca iyo sumcadda marka la yidhaahdo marka sidaas wasiirku baabuurka u joojinayo hadda maxamed ka sheekaynayay lama socon karin cawke intaas raacdo 4 tallaabo ma qaadaysaan baabuurka usoo horeeya soo mara istaagaya xaggeen idin geeyaa buu leeyahay marka qof sidaas caan u noqday ayuu ahaa aniga idaacadda waa ka wada shaqaynay telefishinka waa ka wada shaqaynay xataa madaxtooyada waa ka wada shaqaynay beri waxaa jirtay cawke iyo kameramaankiisii iyo maxaanku yidhaahdaa darawalkii iyo shil intay ku galeen baabuurkii ay ku shaqaynayeen ayaa dhaawacyo soo gaareen muddadaas anigaa la ii magacaabay booskiisii 4 biloodan ka shaqaynayay madaxtooyada wuu soo bogsaday ilaahay awoodiisa sidaas uu shaqadii ugu soo noqday marka nin aan sidaas maaragtay isu daba soconay ilaa intaas BBC isugu nimid ayay ahayd barnaamij caan oo dunida iyo maanta la yiraahdo madadaala telefishinka sii deyn jiray oo aad caan u ahaa ma waxa ka darnaa barnaamijka hore idaacadda barnaamijka musiga iyo salaamaha la yiraahdo maqashay iyo madadaaliya la dhihi jiray galabtii markuu soo galo asaga iyo gabdho iyo ama wiilal 2 qof lagu tabin jiray dadka waxaad moodaysa in wacdi loo aqrinayo way soo fariisanayaan waa la sugayaa barnaamijkaas marka حتى برجي BBC أو كشقينا برنامج كاس موسيقى سلامة آد يا لقيسي يسوق بدنا مركنين وها أقول لك nin saaxiibkeena oo nala shaqayn jiray isla markaana saxaafadda Soomaaliyeed muddo dheer ka tirsanaa ayaan ka sheekeynay taariikhdiisa ilaahay qabrigiisa ha nuuriyo dhageystayaal halka aad naga dhageysanaysaan waa BBC London iyo barta internetka oo cinwaankeenu yahay bbcsomali.com kala soco bbcsomali.com